salaadiin cuqaal odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa oo kulan warbaahineed si wada jir ugu qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay baaq nabadeed u direen laba beelood oo maalmihii u dambeeyay dagaal ku dhex marayay deegaanka Dararweyn ee degmada Ceelaf Weyn kuwaas oo ugu baaqay inay joojiyaan colaadaasi geesta kale waxay odayaashani raaligelin ka bixiyeen hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ugu dambeyntiina shirkoodani jaraa'id waxay si weyn u naqdiyeen shir ay yeelan doonaan beelaha Garxajis kaasoo ay shaaciyeen qaar ka mid ah salaadiinta beelahaasi waxaan horta Ilaahay uga baryayaa dadkii ku dhintay inuu naxariis janno ka waraabiyo inagana samir yeemaan inaga siiyo ehelkii ay ka dhinteen waxa kale oo aanu leenahay annaga iyo odayaashayada halkan fadhiya oo dabaday hadli doona nin waliba waxaanu u direynaa baaq nabadeed waa intii dhimatay soo noqon mayso in dambahay naga raacayna baanu leenahay khaladkana ninkii leh waa inuu qaataa oo uu ka garaabaa waxa kale oo aanu ummadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi baanu booliis ka siinayna suldaanka guud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir hadalkii aan u haboonayn nin suldaana oo ummadaba u suldaana hadalkii ka soo yeedhay ayaanu ka siinaynaa booliis waxaanu leenahay xukuumaddu dadka iyada ugu jecel nabadda ma wado dab ay ka dhex rido oo ay maxay dhex dhigto dadka walaalaha waxay jeceshahay iyadoo ku maamusho dadkeeda nabad marka xukuumadda waanu ka raali galeynaa ummadda Soomaalilandna waanu ka raali galeynaa hadal suldaan maaha ku raaci mayno annagu shifadiisii baanu nay annagu suldaanoo yahay Soomaaliland dhan buu suldaanku guud yahay waxa kale oo maxay halka uu suldaanku ka hadlay lagaga dhawaaqay shir Garxajis waxaanu leenahay war waxana maalin walba ku dhawaaqasaan leedin maxay shir baanu qabanaynaa inagoo ku wada socon oo afar qof oo afka istaaraatiin idinka ceebidu ku tahay ka waantooba dibna ugu noqon inaanu leenahay waxa la isku ogyahay baa fiican walaalayaal waa kugu dhimay oo ka dhimay xabadda joojiya aqli saliima isula kaalaya waanu idiin soo ducaynaynaa in Ilaahay qalbigiina soo celiyo laba sidee la isu waafajinaya suldaankii guud ee Soomaaliland baanay iyo qorigan qaadanaya labada nin ee ilmaadeeri markay istilaan mid baan raacaya tabaladu suldaan labadaas soo waafaji dadku ku sugayaan suldaanku xalay tayiri madaxweyne jeegaanta ha noqonine waxaad noqotaa madaxweyne Soomaaliland horta Muuse Biixi anigu kalmad baan ka hayaa wuxuu yiri kii soo doortay kii hambaliyay madaxweyne aanu ahay laakiin suldaanku isaga suldaan guud ah xalay isaga u muuqday suldaan reer bal hadda eeg marka Soomaalidu waxay tiraa maroodigu takarta ku taagan mooyaane takakale ku taagan buu arkaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho Ilaahay baa idinku dhaarshay xagga Ilaahay u noqda xagga Allah u noqda oo dagaalka joojiya Suldaan Maxamed dadku kii 4 kii maaha ee 8 iyo wuxuu mariyaa 2018 adiga intaasaan kugu dhaafi maayo waxaanu leenahay dadka walaalaha ee isku isdhalay ee isu sodoga isu abtiga ee dhinac walba iska waxaanu soo jeedinayaa baaq nabadeed anoo garkayga cas tusaya oo aan 70 jiray waxaan leeyahay waar nabadu idinkeedii wanaagsantii meel kale tagi meesaan waxaan leeyahay suldaan arrinka isaga anoo caaqil Maxamed Xirsi Faaraxa iyo ciidamadayadiiba xaal ka bixnay marka waxaan leeyahay anigoo u cid ku hadlaya magacii cid waan ogol garxajisnimaday arrinkeeda hal hagaajiyo war maanta dadka dhintay soo noqon maayee inta maanta noole joogta u taliya waxaan idinku ducaynayaa Ilaahay inuu idin kala nabad geliyo intiina kale walaalnimo caafimaad leh Ilaahay jirkiina mariyana way idinku ducaynaynaa shirarkan imaka la soo qaaday beeluu soo qaadeen waxaan anigu leeyahay de horta qarannimo beelimiya istaboolan haddii qarannimo la doonayo ama qarannimadii aan iska dhigno beeli aan noqono ama qaran aynu noqono baan leeyahay anigu waxaan leeyahay guddidaas la sheegaya waxay ahayd guddi wadani Garxajis hadduu guddi samaysanayo iyo hadduu shirayo iyo hadduu iska qancinayo waxa beeshiisa u danaba isagu haysu yimaado isagoo hor dalkan wuxuu qaban karaa baa loo baahan yahay inaynu waxyeello ku soo kordhiyo lama rabo suldaankana waa taa xaalka laga bixiyay faliiq yaroo ama xisbi ka soo jeeda ama meel caadifaysan ka soo jeeda waxba ku qaban mayno shir guud goor alla goortaanu doonaa baanu qaban doonaa ninkii wax sheeganayaaba ha sheegto dagaalka Ceelaf Weyn waaxidiisa ee soo noqnoqonay aad iyo aad buu naxdin u leeyay maanta
cuudna ma haysaan curadna ma haysaan aakhirana khatar baa ku jirta walaalayaal istaba qabta dawladdu mabay socod baran weli eed maanta halkaa loogu eedeeya ma laha taa xaal baanu ka bixinoo dawladda ka siinayn waa shirgar xasisna waa tidhaaheen dagaalna waa alcaamisan ma isqabataan labadaasi siday isku qabtaan mid garxajis baanu doonaynaa ka dabadeed laakiinse midhan ka raran ma yeelin waa Idriis Cabdillah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.